An Maraykanka ayaa mar kale weerar ku qaaday Koonfur-bari Aasiya markan waa sanadka 2007. Taangiyadooda waaweyn oo culayskoodu dhan yahay kumanaantan waxaa loogu talagalay dhulka Koonfur-bari Aasiya waxay ku fiican yihiin fuulista buuraha iyo burburinta dhirta iyagoo deegaanada New Asia u bedelaya dambas. Gantaalada taangiyada ee mara nidaamka ifka buluuga ah waxay dadka rayidka ah ka dhex garan karaan kuwa hubeysan iyagoo boqolkiiba boqol hadafka garaacaya. Dhab ahaantii mararka qaarkood gantaaladu waxay dilaan rayidka laakiin dhib ma leh dadka dhintay waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen fallaago. Fallaagada qaar ayaa sameeya jimicsi ka dhan ah taangiyada iyagoo ku tuuraya qaraxyo laga hagayo meel fog. Laakiin taangiyada Maraykanku waxay leeyihiin ilaalo lugta ah. Intaan qaraxa la ridin ayaa la toogtay qofkii siday. Daniel ayaa sidii tartanka oo kale soo qaaday qalabkii foga laga huriyaa wuxuuna qarxiyay silsilada taangiga. Tani waa dhiirigelinta New Asia. Dadku waxay ku dagaalami doonaan buundooyinka waxayna ku dagaalami doonaan burburka dhexdooda. Xataa Danielka ayaa ku dhiiran. Assalaamu calaykum, waxaan ahay wiilkiini Bakeri Films. Maanta waxaan idiin soo qulasaynayaa filimka cusub ee Terminator. Sheekadu way yara dheer tahay marka laba qaybood ayaan ku dhamaystiri doonaa. Sheekadu waxay ka dhacaysaa adduun khayaali ah. Sanado ka hor intaanan la helin telefishinada midabka leh, robotyadu waxay hore u lahaayeen dareen iyo miyir iyagoo ka shaqaynayay dhammaan qaybaha nolosha. Kadib waxaa soo baxay simulants oo ka horumarsan. Waxay leeyihiin bini'aadanimo sidii robotyada laakiin farqigu waa muuqaalkooda oo aad u eg qofka dhabta ah. Kaliya waxaad iska baadhaysaa wejigaaga kadibna waxaad samaysan kartaa simulant wejigaaga leh. Waxaad kaloo u wareejin kartaa xusuustaada. Farqiga kaliya ee idiin dhexeeya waa in lafahiisu ay yihiin mashiin dhegtana uu ku leeyahay dalool. 10 sano kadib robotyadii aqoontoodu way korodhay. Waxay ka qayb galeen ciyaaraha Olombikada, waxay tageen hawada sare, waxayna noqdeen boolis, cunto kariyaal iyo shaqaale. Waxay xataa awood u yeesheen inay qarxiyaan madaxyada nukliyeerka ee Los Angeles iyagoo markiiba gubay malaayiin bini'aadan ah. Waxay u muuqataa in awooddaas aan la helin ay fiicnaan lahayd. Sidaas darteed Maraykanka ayaa sharciyeeyay mamnuucidda robotyada oo dhan wuxuuna muddo 10 sano ah ku qaatay inuu wada baabiyo. Laakiin burburka Los Angeles maxay ku lug leedahay dadka Aasiya? Sidaas darteed New Asia ma mamnuucin robotyada ee waxay sii horumariyeen iyagoo siiyey xuquuqul insaan. New Asia dan cusub waxay isku dhaftay robotyo iyo simulants aad u badan. Maraykanku wuxuu bilaabay inuu la dagaalamo New Asia. Marmarsiyadoodu waa mid caan ah. Waxay yidhaahdaan ma rabaan inay la dagaalamaan dadka New Asia, waxay kaliya rabaan inay laayaan robotyada New Asia. Robotyadani waxay khatar ku yihiin bini'aadanka oo dhan markaa Maraykanku waa inuu dilaa iyaga xataa haddii ay ku jiraan gudaha dal kale. Waqtigu wuxuu u socdaa ilaa 2065. Goobtu waa New Asia. Ninkan madow waxaa la yidhaahdaa Joshua, waana askari ka tirsan ciidanka gaarka ah ee Maraykanka. Markii hore wuxuu New Asia u yimid inuu basaas noqdo laakiin arrintu way isbeddeshay markii uu jacayl u qaaday gabadh Aasiyaan ah oo ay isguursadeen. Wuxuu rabay inuu basaasnimadiisii sii wato islamarkaana uu badbaadiyo xaaskiisa. Nasiib darro cabaar kadib wuu lumin doonaa xaaskiisa. Sida la wada ogyahay Maraykanku wuxuu jecel yahay duqaynta baahsan. Nomad waa tusaale caan ah. Waa saldhig hawada sare ah oo uu Maraykanku ku dhisay 10 sano. Wuxuu ka soo ridaa gantaallo hawada sare mar kasta oo dhulka laga arko ifka buluuga ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inuu bartilmaameedsanayo. Maanta wuxuu duqaynayaa goob u dhow xaaska Joshua. Gantaal ayaa samada ka soo dhacay dhowr kiiloomitirna cidna kama badbaadin. Joshua wuu fogaa markaasuu badbaaday. 5 sano kadib Joshua wuxuu ku soo laabtay Maraykanka. Shaqadiisa cusub waa inuu nadiifiyo haraadiga shucaaca ee Los Angeles iyo inuu ururiyo robotyadii hore si loo baabi'iyo. Dhab ahaantii shaqadaasi xiiso badan ma laha. Habeenkan generaal Maraykan ah ayaa u yimid si uu u siiyo hawl muhiim ah. Sida xogtu sheegayso New Asia waxay soo saartay hub qarsoodi ah oo loogu talagalay in lagu burburiyo Nomad. Hadda oo dagaalku marayo meel adag waa in la burburiyaa hubkaas si Nomad loo badbaadiyo. Joshua wuu qoslay wuxuuna yidhi haddii Nomad la waayo way fiicnaan lahayd, isagaa dilay xaaskayga. Generaalku wuxuu yidhi wax jira ayaad moogtahay, xaaskaagu weli way nooshahay. Wuxuu tusay muuqaal la duubay 2 maalmood ka hor. Xaaska Joshua lafteedu waa naqshadeeye waxayna qayb ka tahay horumarinta hubka qarsoodiga ah. Maraykanku wuxuu qorsheynayaa inuu isticmaalo Nomad si uu u duqeeyo hubka qarsoodiga ah islamarkaana u laayo dhammaan saynis yahanada. Haddii Joshua uu ogolaado inuu ka qayb qaato howlgalkan, generaalku wuxuu u ogolaan doonaa inuu xaaskiisa badbaadiyo marka hore. Joshua wuxuu aad u rabaa inuu arko xaaskiisa markaasuu markiiba isdiiwaangeliyey. Dhab ahaantii isaga iyo ciidanku isku ujeedo ma ahayn. Ciidanku waxay rabeen inay hubka burburiyaan, isaguna wuxuu rabay inuu xaaskiisa badbaadiyo. Hadda ciidanku waxay garanayaan meesha hubku qiyaastii ku jiro. Joshua iyo kooxdiisa waa inay si qarsoodi ah u galaan aaggaas, helaan halka hubku sax ugu jiro kadibna u yeedhaan Nomad si uu u duqeeyo. Kooxdii gaarka ahayd waxay ku soo degtay goobtii howlgalka. Waxay bilaabeen dhaqankoodii caadiga ahaa, waa inay qori ku qabtaan waayeelka iyo carruurta si ay u weydiiyaan halka hubka qarsoodiga ahi ku jiro. Dadku aad bay u baqeen laakiin ma bixin wax xog ah. Tani ma aha mid luqada darteed ah, maadaama Maraykanku leeyahay qalabka turjumaada ee waa midnimada New Asia darteed. Bini'aadanka, robotyada iyo simulantskaba si isku mid ah ayay u necab yihiin Maraykanka. Askari Maraykan ah ayaa carooday wuxuuna ku hanjabay inuu dilayo eeyga yar ee gabadhu leedahay. Joshua oo isticmaalaya khibradiisii basaasnimada ayaa gartay in sanamka Buddha uu yahay mashiin lagu furo albaab qarsoon oo saldhig tijaabo ah. Eeygii yaraa waa badbaaday laakiin saynis yahanadii nasiibkaas ma lahayn. Askarigii Maraykanka ahaa markuu saldhigga galay wuxuu dilay qof kasta oo uu arko. saynis yahanada qaarkood waxay xidheen albaabadii difaaca iyagoo caawinaya saaxiibadood islamarkaana ku habaaraya afka Aasiya. Qalabka turjumaada ayaa u bedelay Ingiriis isagoo yidhi fadlan
askari Maraykan ah ayaa qoslay wuxuuna ogaaday in albaabku ku furmo garashada wejiga face recognition. markaasuu mayd wejigiisa ka soo gooyay si uu albaabka u furo. markii uu sidaas sameeyey, saynis yahanadii albaabka ka dambeeyey dhammaantood waa la laayay. Joshua wuu yara naxariis badnaa, kama qayb qaadan xasuuqan. wuxuu helay hubkii qarsoodiga ahaa ee la sheegayay. hubkan waxaa ku wareegsan albaabo badan. Joshua markuu furay albaabkii wuxuu arkay keliya telefishan, fadhi iyo simulant yar. hubka qarsoodiga ahi ma simulant yar oo gabadh ahba? Joshua isagoo yaaban ayaa saynisyahan gabadhii yarayd dibadda u saaray. Joshua iyo gabadhii yarayd waxay u carareen dibadda. dibadda waxay ahayd fowdo, waayo Maraykanka oo dad badan laayay ayaa keenay in booliiska mashiinka ah ee New Asia ay yimaadaan. labadii dhinac ayaa bilaabay dagaal culus. Maraykanka waxaa ka dhimanayay dad badan, xidhiidhkuna wuxuu noqday mid adag, markaa xogta si fiican looma gudbin karin. sidaas darteed khalad weyn ayaa dhacay. iyagoon weli garan waxa hubka qarsoodiga ah yahay ayay u yeedheen nomad si uu u duqeeyo saldhigga tijaabada. gantaalku wuxuu soo dhacayaa dhowr daqiiqo gudahood, markaa waa inay naftooda badbaadiyaan. askari ka mid ahaa kooxda ayaa raacay diyaarad, laakiin ma uusan ogeyn inay ku xidheen bam booliiska mashiinka ahi. diyaaradii waa qaraxday, kooxdiina dhammaantood waa dhimadeen. Joshua ma raacin diyaaraddaas maadaama uu xaaskiisa raadinayay. habeenkaas oo dhan ma helin xaaskiisa, mana oga inay dhimatay iyo inay nooshahay. abbaar kadib gantaalkii nomad wuxuu ku dhacay saldhiggii, saynisyahanadii oo dhanna waa dhimadeen. Joshua mar kale wuu fogaa, markaasuu badbaaday. markuu soo toosay waxay ahayd aroor. gabadhii yarayd waxay u dhoweyd isaga iyadoo daawanaysa telefishan. aad bay u jeceshahay telefishanka. markii Joshua uu damiyey waxay gacmaha isku qabatay sidii telefishankiina wuu iskiis u daarmiyey. tani waxay Joshua ka dhaadhicisay inay iyadu hubka qarsoodiga ah tahay. sida amarku ahaa, Joshua wuxuu ku qasbanaa inuu dilo gabadha, laakiin isagu uma imaan hawsha Maraykanka ee wuxuu u yimid badbaadinta xaaskiisa. markii uu gabadha la hadlay wuxuu ogaaday inay u muuqato inay garanayso meesha xaaskiisu joogto. maxay u muuqataa u tahay? sababtoo ah gabadhan miyirkeedu waa midka ilmo 2 ilaa 3 jir ah. dadka carruurta leh way og yihiin in carruurta dadaas ahi aysan hadalka si cad u dhiibi karin. Joshua wuxuu go'aansaday inuu ka haysto gabadha si uu u raadiyo xaaskiisa. maadaama ay madaxa ku leedahay xarfaha alfa omega, Joshua wuxuu u bixiyey magaca Alfie. halkan waxaa ka dhacay dhacdo yar. boolis mashiin ah oo New Asia ah ayaa soo raacay Joshua, waxayna ku fureen rasaas iyo bamooyin gacanta ah. Joshua wuxuu ku dhumaalaystay bakhaar ay leeyihiin beeralayda deegaanka. halkaas waxaa joogay ay u haystay in robotyadu ay ciyaarayaan, markaasuu bamkii afka ku soo qabtay oo dib ugu celiyey iyagii. bakhaarkii waa qaraxay. runtii New Asia waa meel cajiib ah. eygii si farxad leh ayuu u ciyaarayay. Joshua wuxuu ka haystay baabuur si uu u bilaabo raadinta xaaskiisa, isaga iyo Alfie. sheekada inteeda kale waa sidii nin xoog badan iyo ilmo yar oo safar ku jira. dhibaatada koowaad ee Joshua la kulmay waxay ahayd booliiska. markii uu isku dayay inuu si qarsoodi ah ku maro goob kontarool, booliiskii ayaa ka shakiyey. wakhtigaas Alfie ayaa isticmaashay awooddeeda dhammaan, korontadii agagaarka 100 mitir ahna waa goday. markay mar kale isticmaashay awoodda baabuurkoodii ayaa iskiis u orday isagoo jebiyey kontaroolkii. aad bay u xiiso badnayd. waxay galeen magaalo ka mid ah New Asia. meel kasta waxaa lagu soo bandhigay sawirka Joshua oo la raadinayo. dadka rayidka ahna qaarkood ayaa soo sheegay booliiska. intaan booliisku soo gaadhin, Joshua wuxuu booqday saaxiib hore. ninkan waa khabiir dhinaca farsamada ah, wuxuuna ka shaqeeyaa warshad lagu sameeyo simulants, wuxuuna leeyahay saaxiibad girlfriend simulant ah. saaxiibkii markuu Alfie baadhay wuxuu ogaaday inay tahay simulant aad u horumarsan oo aan nooceeda la arkin, awooddeeduna ay sii kordhayso. hadda waxay xukumi kartaa qalabka korontada ee u dhow, laakiin mustaqbalka waxay xukumi kartaa dhammaan qalabka korontada ee adduunka. iyagoo hadlayaya, booliiskii New Asia ayaa soo weeraray. waxay u dhaqmeen si xirfad leh, iyagoo iska dhigaya dad cunto keena delivery, laakiin baakidkii waxay ku soo xidheen bam. saaxiibadii ninka farsamayaqaanka ahayd halkaasay ku dhimatay. Joshua wuxuu ku dhumaalaystay meel mugdi ah, wuxuuna bilaabay inay toogto booliiska mashiinka ah. isaguna wuxuu ahaa mid khiyaano badan. wuxuu iska dhigayay inuu isdhiibayo, kadibna wuu weerarayay, wuxuuna laayay booliis badan. ninkii saaxiibkiis ahaa aad ayuu uga xumaaday dhimashada saaxiibadiis, laakiin muddo dheer ma uusan murugoon, waayo isna cabbaar kadib waa la dilay. sida loo dilay ka hadli maayo, waayo waa sheeko yar oo dheeraad ah. isku soo wada duub geeridii saaxiibkiis kadib, Joshua iyo Alfie ayaa dib u bilaabay safarkoodii. nasiib wanaag waxay jidka kula kulmeen falaagada New Asia. hogaamiyaha falaagadu waa nin Jabaani ah oo simulant ah. isaga iyo xaaska Joshua waxay ahaayeen saaxiibo dhow, markaa wuxuu ogaa siro badan. tusaale ahaan, Alfie waxaa gacanteeda ku samaysay xaaska Joshua, waxayna isku yihiin sidii hooyo iyo gabadheed. Alfie waxay u jirtaa inay baabiiso dhammaan hubka adduunka si nabad loo helo. wuxuu kaloo sheegay in dhibaatadii nukliyeerka ee Los Angeles ay dhab ahaantii ahayd khalad bug ay sameeyeen Maraykanka laftooda, kadibna ay eedda dusha ka saareen robotyada. New Asia ma doonayso inay dhibaatayso dadka reer galbeedka ah, waxay keliya rabaan nabad. ninkii Jabaaniga ahaa isagoo hadlayay, doontii ay la socdeen waxay gaadhay xerada falaagada. tani waa tuulo kalluumaysi oo aad u camiran. dadku waxay ku noolaan lahaayeen nabad, laakiin nomad ayaa hadda duqeeyey agagaarka dad badan oo aan waxba galabsana waa ku dhaawacmeen. dadku waxay bilaabeen inay rajo beelaan. ninkii Jabaaniga ahaa ayaa ku dhiirigeliyey in marka Alfie ay weerar bilowdo wax kasta ay hagaagi doonaan. maalin ayay awood u yeelan doontaa inay toos u burburiso nomad, laakiin hadda waxay u baahan tahay koritaan. habeen dambe falaagadii ayaa qayliyey, Maraykankii ayaa soo weeraray. maadaama Maraykanku rabo inuu burburiyo Alfie, waxay ogaadeen inay tuulada ku jirto. markan waa ciidanka lugta. waxay isticmaaleen bamooyin qiiq ah si ay isku qariyaan, laakiin dhirtii oo dhan oo dambas noqotay ayaa muujisay in taangiyada waaweyn ee Maraykanku ay jidka soo banaynayaan. guryaha cufan ee New Asia waxay u fududahay inay noqdaan meel dagaal oo lagu riiqdo, laakiin guryahani ma xooganaan. taangiyada Maraykanku waxay magaalada ka dhigeen meel
meel simaan. Askarigii Maraykanka ahaa waxay raaceen taangiyada fallaagadiina waxay waayeen meel ay ka difaacdaan markaasay qasab ku noqotay inay dib u gurtaan. Taangigan wuxuu leeyahay hub kasta. Dhinaca midig waa madaafiic waaweyn, dhinaca bidixna waa kuwa qaraxyada tuura dhexda ifka buluuga ahina waa nidaamka hagida. Muuqaal ahaan waxay u muuqataa inuu xukumo oo keliya askarta oo uu dhaafayo rayidka, laakiin gantaalku markuu qarxo wuxuu wada leynayaa qof kasta. Tani waxay sii kordhisay dhiirigelinta New Asia. Waxay ku tuureen qaraxyo laga hagayo meel fog, xataa haddii qofkii tuurayay la dilo daanyeer ayaa soo qaadaya oo qarxinaya. Laakiin arrintaas nasiib uun bay ku timi. Dagaalyahanada New Asia waxay og yihiin inay guulaysan karaan, laakiin ma aha dagaal hal mar ah ee waa inay dagaalka dheereeyaan oo ay ku faafiyaan meelo badan. Qaarkood waxay ku dagaalamayaan duurka, qaarkoodna waxay isticmaalayaan fursadda si ay u baxsadaan. Weerarkan Maraykanku wuxuu u ekaa dube ku dhacay cudbi, ma helin natiijadii ay rabeen. Aynu niraahno nasiino ayaan qaadanaynaa berito, waqtigan oo kale ayaan arki doonaa sida New Asia u samayn doonto. Sidaan hadda ku aragnay filimkan, muuqaaladu waa kuwa aad u qurux badan, inkasta oo qarashka ku baxay uu ahaa $80 milyan oo keliya. Intaas waxaa dheer wuxuu leeyahay qaab gaar ah oo loogu yeeri karo sayniska saboolka. Robotyadan waxay u muuqdaan kuwa huwan dhar duug ah oo ku nool guryo fudud, haddana waxay xambaarsan yihiin farsamadii ugu horumarsanay. Laakiin haddii muuqaalka laga tago, sheekadu waa mid yara wareer ah, sidii in ay uu qoray sheekada. Tusaale ahaan, Joshua wuxuu New Asia u yimid inuu dilo naqshadeeye ay ah oo qarsoon. Isagoo xaaskiisa ilaalinaya ayuu haddana xogta naqshadeeyaha u gudbinayay Maraykanka. Markii ay xaaskiisu dhimatay kadib ayuu ogaaday in xaaskiisu ay tahay naqshadeeyihii uu raadinayay. Markaa xogta uu Maraykanka siinayay dhab ahaantii wuxuu ku qiyaameeyey xaaskiisa. In nomad uu dilay xaaskiisa isagaa qayb ka ahaa. Nasiib darro, markii uu waxaan ogaaday xaaskiisu dhowr sano ayay dhimatay, wuxuu dareemay qoomamo weyn. Filimkeena qaybta koowaad maanta halkan ayuu ku dhammaanayaa. Ku soo dhawaada Bakeeri Films, subscribe saar li kitaabo muuqaalka waa ino iyo marka